waxa toos u baxay 11 xildhibaan 2 xildhibaan waxay ku baxeen fraction sidaas ayay ku dhantahay 13kii golaha deegaanka ee degmada Boorama kadib markii dhawaan gudoomiyaha gudida doorashooyinka degmada Boorama ku dhawaaqay natiijada hordhaca ah ee 13 xildhibaan ee ku guuleystay golaha deegaanka degmada oo ka kala socday saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland ucud kulmiye iyo wadani ayaa maalmihii u dambeysay waxa ay badiba mudanayaashan guuleystay loolan adag ugu jiraan buuxinta kursiga gudoomiyaha hogaamin doona golaha cusub xildhibaanadan u ruucleynaya helida booska iyo hanashada kursiga duqa degmada Boorama ayaa mid walba ugu howlan yahay kulamo gooni ah oo ay ku jirayaan jid kasto u sahlaya sidii uu fadhiisan lahaa kursigaasi ololahan kuma koobno oo kaliya mudanayaasha jaan goynaya kursiga balse bulshada qaybaheeda kala duwan ee magaalada ayaa ku muransan maayirka cusub ee la filayo inuu hogaamin doono magaalada Boorama kuwaas oo goobaha ay bulshadu ku kulanto si weyn loogu qaadaa dhigaya hadalhaynta cidda buuxin doonta booskaasi dagaalkan siyaasadeed ayaa sidoo kale haysta baraha bulshada iyo qaybaha kala duwan ee warbaahinta isagoona qof walba ku soo bandhigaya aragtidiisa gaarka ee ku aadan kursigan lagu loolamayo haddaba gudoomiye noocee ah ayay u baahan tahay Boorama waa kan aqoon-yahan Siciid Habane oo kamid ah barayaasha jaamacadda Camuud oo si qoto dheer u falanqeynaya su'aashani qofkaynu u baahannahay magaaladan inuu u adeego waxa weeye marka kuwa inuu garanayaa mas'uuliyadda iyo shaqada looga baahan yahay golaha deegaanka iyo degmada Boorama ee maayarxaan laga rabay isaga maadaama uu hogaamiye yahay laba waxa weeye waa in ay ka go'an tahay qofka doonaya inuu shaqada qabtaa inuu wax qabto oo aanay ujeedada ugu weyn ahayn ama dhaqaale ka samayso ama hansi maxaan ku raday xil oo kale maxaan ku raday meel baan ka gaaray ka noqoto laakiin raba oo ay ka go'an tahay shaqada qabashada iyo u adeegida bulshadu qodobka saddexaad waxaan isleeyahay waa inuu leeyahay astaamo siyaasad astaamo hogaamineed waayo waa hogaamiyaha ugu sareeya degmada ee koow hogaamin doona xubnaha la wada doortay hogaamin doona laamihii kale ee dawladda hoose bulshada degmada dhammaan u ah qofka ugu sareeya waa inuu astaamihii hogaamineedna uu leeyahay saddexda astaamood haddii laga helo waxaan isleeyahay qofkaasi si dhaba buu u buuxin karaa maxay tahay fariinta u dirayso 13 mudane ee jaan goynaya maayirka cusub ee magaalada Boorama nimanka asxaabta waxaan leeyahay inta dib u fadhiisataan aad u fikira idinkoo xisbiyo kala duwan ka soo baxay afkaara kala duwan wata laga yaabo reerihiina laftooda inay dabada ka riixayaan haddana intaad gaar u fadhiisataan inta maanta isugu dhow ee shaqa ka dhaxaysa waa 13 kiina siyaa idinku mudan yaa maxaan ku raday idinku khibrad badan yaa magaaladaasi horumarkeega iyo wanaaggeega maxaan ku raday ka shaqayn karaya macnaheedu ma aha kaasi kaliya buu shaqo qabanayaa sidaa uga fikira sidaana ku doorta intiina kalena hadduu miduna soo baxo ku niyad xumaan isku dayana kula shaqaysaan oo aad magaalada horumarkeega 13 kiina maanta 5 sano ka bacdi taariikhdu waxay idin qori doontaa dad wanaagsan oo magaalada wax u taray iyo dad xun oo magaalada waxyeeleeyay kala doorta labadaasi maanta idin hortaala waa inuu ninka qofka maayarka ah la dooranaya marka la doortay maxaan ku dhahay xubnahaasina insha Allah hadii la yiraahdo qof inta qaban kara ay ka fikiraan si dhaba uu ka shaqeeya koow in uu bal magacii dawladda hoose iyo bulshadii horta isu ogoleysiyo la tusaa bulshada inuu iyaga loo adeegayo cashuurta laga qaadayo aad dareemi kartaa maxaa kaaga soo noqonaya imiga tusaale ahaan nadaafadii oo kala kamid ah waa waxa ugu yari dawladda hoose qabato nadaafadii shirkada barayfada ka shaqeeya laakiin doorka yeelanaysa dawladii hoose waxa yeelanaysa markay ugu yartahay inay dabagal yeelato nadaafadii sideedii ma loo qabtay sideedii ma loo fuliyay maxaan ku dhahay inay intaasi laga shaqeeyo isla xisaabtankii in la xoojiyo oo hay'adihii maxaan ku dhahay ama department walba shaqadiisa lagula xisaabtamo waa Cabsalaan Bashiir Faarax Cabsalaan Saaha warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Boorama